إن شاء الله عشر كان أم عطو كان حنو أرك دونا حنا هذا visual aids. visual aids هذا واحد معها وواحد عاونية إن فرنتي أتقول بالله أتقول بس. صراحة أنا كم حكى عايش كين يا منطقة كله بورها بوليس. ما كبورها بوليس هنا منطقة بورها بوليس كوش رحوا أو منطقة بوريه كشكيو. هنا الأتليس يصور كاتسو كده من كعب شكيو. كيف رفيع عن أي بلاد هاي كيف يبلاد هاي فرنتي أسيسي عن أي مسرح هذا الرات كوي رينيسو كورنا هذا موقع بسيط الصوت سو كما سيفي أنا نسو مركز سوري موقع مثل البرهاد جار أي وقف كوي أنا يا ده فرق واحد دنيا مركز بريسنتيشن سمينيس إن أوصل بريسنتيشن كلا نقول عليك أي أفكار كلية يس مرة بدل وقت هو أصلا تاي إن بريسنتيشن كو ونقطة كلية وحمارة تاي عليك كاسو كلية كلية لكن مرة بدل وحلاقي باه تدمي بسبورة ده وحقرتي وحوي حساب يصير كالكوليت جريسي maybe inaad u baahan tahay sawir aad muujisid maybe inaad u baahan tahay wax la mid ah marka mar walba maxaa la yiraahdaa visual aids waa wax aad ku anfacaya maybe projector oo kala isticmaalaysa oo waxba ku jeedinaysa marka mar walba visual aids waa wax adiga dani kugu jirto mar walba guul ku sawray markii laga hadlayo visual aids ka markii la design gareynayo ama la naqshadaynayo qoraalkaada ama systemkaada waxaa la isticmaalaa fikrad fudud ama design concept taasoo ah big simple clear saddexda shay waa rabaa inaad raacdid oo ah mar walba wax isagreynayso inay waaweyn wixii si fiican qof u arko karo ugu sheegay ugu dambeeyay oo arki karo wixii aad wax qoraysay ama qoraalkaadii ama wixii aad qofka siisay waxa rabaa inay fudud yihiin waxa rabaa inay clear yihiin oo aysan ambiguous ahayn wax qofka shaki gelinaya intaas uu soo koobaynaa qaybta hordhaca aad iyo mahadsantiin هنا visual aids كي محل هذا big design concepts كي أو ما أعتبر أصلا شرحنا في كوبا أو big مركلوا بلاي وحنا إلا أركيكرو أو أفكو big معناها وحوي وحينيس هاي واحد يسقطها أفكو وش شيء أو دينسية أفكو وش قية كان الحوار على الروائنا وحي أتشي سهل صور تاي هذو قراليه إني ما أرتسي والواركا مركا محل وضع should be able to read everything from the background معناها قفك وش شيء وين وحنا عارفين كلام هذه أد مركب باوربوينت استعمالي سي حد استعمالي كرتا فرتا لبعتين يصير بي preferability سيجز استعمالي كرتا سيدو كله استعمال أو تستينج كله مركب هوري أنت عالم ضدكي عالم ويري محل هذا بريستيشن كبيرودي ومركب لما يسكت في سيد والله لما أركني وحين واحد عرفت قفكي وحرايا واحد وقام هذا نهاية maybe واحد رايا واحد قرق من كعجلة يوضتك على الأذنها وحنا مودمي وحى وقعت قفكي مسنعك كريم هذا مدوني واحد سود إذا مركب وراي أنت يسن كيسيف عن صوت نابن هنا فيريسيت أو قفك ومودمي فريس وبالأكل كرت إن ما عرفتي وحي سيف عن وعد كرو هي إنكار مركب بيك بالكلية وحلقة ولا وحي عاد مجنسي إن سيف عن عم وحي على كوسك ونجلس إن ما عرفتي فرتي ووين تاي سيف عن وعد كرو أي رجال inuu xigta qaybta labaad big simple baynu marayna waxa way design conceptski ayaynu wali ku dhex jirnaa marka simple marka lagu leeyahay waxa laga wadaa in wixii ay yihiin wax fudud oo waa maxay sometimes adoo fartii wixii waaweynaynayo wixii ay hadaa wixii isku shiishin oo qoraal tiro badan soo bandhigtid oo si isugu jirjiro tiro badan waxa ku adkaanaysa qofkii inuu ma aragtay si fiican u arko ay adkaanaysa sidana waxa la sameeyaa marka presentation sameynaysid wixii waxa la isku dayaa in aad soo fahantin si just clear hadalla kooban ay qoraal yar oo kooban aad PowerPoint-gaaga uga dhigtay si marka qofkii walba u arki karo wixii meanka ah qof walba u arki karo wixii sharaxada aad meesha u taagan oo sharaxay maybe 10 ba sharaxaysay 10kii maybe waxaad ka hadlaysay qodobada cunto cunida markaas waxaad tiri 1 iyo 2 iyo 3 ayaa kamid ah koow falaxal marka falaxalkii baa number 1 qoraysa hal eray bas weey hada wada sharaxay falaxalka si loo falaxasha maxaa la isticmaalaa saabuun nooceeda waxa ay sharaxaysa laakiin conceptiga waxa la doonayaa marka hore in wixii wax kooban aad meesha ku qortid markii aynu hadal ahaan ama sharaxaad ahaan ka soo tagno salaam waxa recommended oo kale isticmaali kartaa ugu yaraan
in halkii PowerPoint ama halkii presentation uusan ka badan 6 line uusan ka badan 6 line ka yaran kara laakiin uusan ka badan maxaa la yiraahdaa 7 eray marka ku leeyahay waxa weeye waan anigu aad magaran erayada nooca waa eray magaranaysa kiiba magaranaysa marka 7 eray inuusan halkii line ka badan si markaa aysan wixii jaam noqon markii wixii saas oo kale u fudud yihiin waxa qofka si fudud u fahmaya wixii aad sheegaysay ayuu si fudud u fahmaya waxaynu soo gaarnay gabagabadii ama qaybta ugu dambeysay qaybtan waxaynu ku arki doonaa clear ereyga clear ayaynu ku sharaxaynaa haddii la yiraahdo marka waxaynu ka hadlaynaa big design concepts markii aynu sida design concept ka hadlayno waxaa ka mid ahay big simple iyo clear hadda waxaynu maraynaa in clear waxa laga doonayo clear waxa weeye wixii inay noqdaan wax clear ah wax la arki karo oo aan shaki ku jirin ayaa clear laga wadaa marka saas leenahay waxa weeye xigmadda kuwa ka qaadanaysa waxa weeye waxa wax ku qoraysa inay yihiin wax la fahmi karo salahan hadaa isticmaala ka waran far isku dardar isticmaala waa weynay wax walba okay laakiin far waxa isticmaala isku dardar maxaa dhacay dadkii audienceska inaysan maxaa yiraahdaa wixii fahmeen baaba dhacaysaba ha way kaasif waxaan isticmaalnay far maartay chiefta meeshan isticmaalnaa far maartay degan oo maartay erayadii kala saaraysa marka waxa laga doonayaa salahan marka presentation isticmaalaysa farta isticmaali karto sidoo kale waxa isticmaali kartaa area or mid la yiraahdo helvetica marka just iyo kuwii la midka qasama labadan kii kuma qasbin laakiin waxa weeye kuwa la midka isticmaali kartaa waxa kaloo iska ilaalisa waxa kaloo isticmaalaysa macnaha blue background si yellow text salahan oo kale waa tusaaleeyaha wax kale oo isticmaali kartaa sida socotid blue maaratay haduu background ku yahay black iyo qoraal cad si fiican isugu soo baxayaan si fiican isugu soo baxaan black background with yellow with white text qoraal cad iyo background madow aad bay isugu soo baxaan sidoo kale waxa isku soo baxay kara blue background black maartay blue way background kaada maartay farta background ka iga dambeeyay ismeesha cadaan blue inuu noqdo iyo maybe fartii oo maartay jaala iyadana soo baxaan marka muhiimad waxa weeye qasama inay ku isticmaasho laakiin farsaas oo kale isugu soo baxaysa background ka iyo farta isku soo baxayso sababtaas intaas adoo wax walba raacay far iyo qoraal isku soo baxay ma isticmaalaysaa taan dhibaato ku geysanaysa sidoo kale avoid of a use of red shadows animation or transitions ina transition tra badan transition waa just xayisiin PowerPoint isticmaalay wixii ana soo rogmanaya waa soo baxay hadana ana soo rogmanay soo baxdana si kale wixii waa inaad hal transition ku isticmaasho shadow hada u sameynaysid wax inaad ugu yaraan aadan maaragtay ku talax tagin ma raba marka overuse inaad aad u isticmaasho shadowyada marka be aware of busy background kaadu inuusan noqon mid busy background simple ah sida kalarada simple ka ayaa la isticmaalaa markii background kala diyaarinayo ayaa la isticmaalaa inta badan waxa clip art sidoo kale clip art should add to the content marka waxa weeye clip art just is clip art sawir waa clip art waa sawir ruuxaas si kala kartoon iyo sawir caadi labadaaba waa wax weeye waad ku dari kartaa contentiga si aad si fiican ugu muujisid wixii aad sheegaysid si uu qofku maartay si fiican u maartay u fahmi karo waxa kaloo kamid ah dito on sound clips marka sound clips inaad codad raacsid oo kale codadkaas marka waxay sameynayaan maybe waxaad ku gulweystay abaalmarin baa tiri isoo kale macnaha sheeka waday abaalmarintii oo kale qolo maartay xawayro qayra ku daraysa ilo oo kala magaraysa codad isoo kale marka sidoo kale use different background only to emphasize on one slide marka rabtid inaad ma aragtay slide kamida slide-yadii PowerPoint oo slide sida loo yaqaan halkii book oo PowerPoint-ga marka book kamida rabtid ama slide kamida rabtid inaad maartay muhiimadiisa muujisid waxaad isticmaali kartaa background-ka inaad ka bedesho laakiin inta kale necessary ma aha inaad background-ka aad ka bedesho necessary ma hal background inaad barnaamijka oo dhan ku wadid ayaad samayn kartaa only marka meel emphasis ku sameynaysid ayaad background-ka ka bedeli kartaa oo qofka aad rabtid inuu si gaar ah u dareemo meeshaas markaa maraysid waxaan rajaynaynaa marka inaad si fiican u fahantay big simple screen ama visual aids-ka sideeda qofka way anfacaan ugu dambeynna waxa weeye inaad wax walba diyaarinaysid isku daydid inaad maartay ugu yaraan waxun visual aids aad ku dirto dad weydid waad weyday laakiin haddaad heli kartid message-kii aad gudbinaysay ay si fudud
kugu sii gudbinaya aad iyo aad u mahadsantahay